dadka caanka iyo qoysaskaba dhibaato badan buu ku hayaa. dadka caanka ayaa ka cawda baraha bulshada iyagoo sheega in magacooda si qaldan lagu isticmaalo. haddaba fanaanka Maxamed Siciid Cabdi Biike ayaa waxa uu ka waramayaa bal dhibaatada uu ku hayo isaga iyo dadka kale ee caanka ah. anigu social media ma isticmaalo. social media waxaan ka isticmaalaa WhatsApp kaliya, laakiin anigu Facebook iyo page iyo waxa ma isticmaalo social media isma fiicnin. horta dadka caanka iyo qoysaskaba iyo bulshooyintaba dhibaato badan buu ku hayaa social media. waxyaabo badan buu ku hayaa, laakiin waxaan jeclaan lahaa ama dadkan kaga wacyigelin lahaa in sida wanaagsan loo isticmaalo oo sida xun laga tago. dhibaatada caanka oo dadka caanka ku hayo waxa kamid ah qofkii oo been abuur laga sameeyo war beenan jirin, qofkii oo magaciisii la sameysanayo page inta lagu sameysto laga sheegayo waxaanu jirin, qofkii oo been laga abuurayo inuu xaaskiisa caynkaas been la sheegayo ma fiicna. ilaahay ka cabsada baan oo lahaa dadka wax wanaagsan ku qora. dadka magacayga isticmaalo waxaan oo lahaa war wax wanaagsan soo dhiga. maxamed waxa jira pages fara badan iyo Facebook iyo magacaaga ku yaalo oo inta badan la soo dhigo waxyaabo dadka Soomaalida kala kaxaynaya. inta badan Soomaaliya oo kale wax lagaga sheego. pageska Maxamed Siciid Biike baa ku qoran. adigu waxa sheegtay inaanad wax page-ba aanad isticmaalin iyo wax Facebook-ba aanad isticmaalin. fanaan Soomaaliyeed baa tahay oo bulshadoo dhani u wada siman. adigu sidoo aragtaa dhibaatadaas. haddaad aragto nin meel magaciisii ku furtay ama page furtay oo qof la kalsooniya oo magac wuxuu ku doonayaa in view-gaas uu kaco. waxaan qofka ku oran lahaa hawdan aanu marinaya inuu iska daayo dhibaatada. page-kaasi ma jiraan social media anagu iskuma fiicnin. waxa dadka loo qoreeyay ee la gudbinaya waa been abuur. waxaan jeclaan lahaa inay ka waantoobaan waxyaabo caynkaas oo kale. ummadana anigu ma kala xigsado, ummadda waa soo kaymid. marka ummadda waxaan jeclahay in la isku soo jeedo maasha Allah. laakiin de qofku meel buu taageeri karaa, jeclaan karaa. Soomaaliland haddaan taageero dhibaato maaha, laakiin Soomaali waa soo kaymid. anigu fanaan baan aad baad mahadsantahay. social media horta dhaawac weyn buu ku hayaa bulshada. reer dhan oo nabad ku seexday xalay baad arkaysaa qofba mobilka gooni ula jeestay oo dabadeedna khadka bakhatisay internet-ka waxa laga yaabaa dadkaas inay wada hadlaan. wuxuu kala kaxeeyay bulsho fara badan. social media waa mid laba af leh, hadba waa dhankii loo isticmaalo. laakiin bulsho weynta Soomaaliya waxaan kula talinayaa faa'iido iyo khasaare buu leeyahay. faa'iidadiisa qaat,